haweenka haddaad dishaan haddaad kufsataan ablaha hooyooyinka noqon lahaa uqiyo ku dishaan algaan haddaad wada heeraysaan oo halbowlaha wada jartaan hadhow taalkeed ku xiran kulanti wanaagsan oo habboon bulshada Soomaaliyeed ee nagu xiran waa war degdeg oo farxad leh allaha u naxariistay gabadhii dhawaan ku dhimatay magaalada Muqdisho magaceeda la oran jiray Xamdi ee inta la kufsaday dabaqa dheer laga soo tuuray ragii ama ninkii sababta u ahaa inay hotel ka tagto oo waliba saf loo galo kufsigeeda oo gacanta lagu dhigay isagoo soo galay maamul goboleedka Galmudug magaalada Cadaado kuna sii jeeda maamul goboleedka Puntland iyo waliba markii la wareystayna waxa uu sheegay arrin la yaab leh oo ku saabsan kufsiga Xamdi iyo qaabkii ay u dhimatay iyo sidoo kale cidda kufsatayba arrintaas ayaa waxaanu niga haynaa arrin faahfaahsan oo ku saabsan allaha u naxariistay Xamdi balse intaana muuqaalkayga gudagalin waxaan si naxariis la kaaga codsanayaa haddii kanalka maanta aad ku cusub tahay inaad subscribe saarto oo gacmo furan aad ku soo dhawaato haddii hore aad nooga mid ahaydna waad ku mahadsan tahay sida milgaha iyo sharafta leh ee habeen iyo maalin aad ugu taxad tahay barnaamijyadeeda aad ka dheehato Warida TV muuqaalkana markuu ku soo gaadho fadlan sii share garee oo bulshada Soomaaliyeed gaarsii waa farxad leh comment caafimaad qabana idaaf mahadsanid haweenka haddaad dishaan haddaad kufsataan ablaha hooyooyinka noqon lahaa uqiyo ku dishaan algaan haddaad wada heeraysaan oo halbowlaha wada jartaan hadhow taalkeed ku xiran aynu ku bilownee maalmo ka hor ayay ahayd markii gabadh lagu dilay magaalada Muqdisho magaceeda la oran jiray Xamdi oo waliba ardayad ahayd doonaysa inay noqoto dhaqtarad gabadhaas oo inta hotel lagula ballamay la kufsaday oo waliba dabaqana laga soo tuuray iyadoo la waayay cid arrinta ka dambeysay ama falka ku lahaydba inkastoo la xirxiray shaqaalihii hotelka ka shaqaynayay ama mulkiilayaashii haddana maalmo ka bacdi la soo daayay arrintaasoo bulshada Soomaaliyeed aad uga caraysisay oo waliba taabatayba haddaba arrintaas ayaa maanta soo idlaatay oo wadiiqadii ugu horreysay la helay kadib markii la qabtay ninkii sababta u ahaa in Xamdi ay tagto hotelkaas ee waliba kula ballamay ee xiriirka jacayl ka dhaxeeyay ee beenta u sheegay ee qol ka mid ah hotelka intuu kula ballamay geerideedii ay noqotayba ninkan ayaa waxa lagu qabtay isagoo baxsada maamul goboleedka Galmudug waa magaalada Cadaade waxaanu ku sii jeeday maamul goboleedka Puntland oo uu doonayay inuu dhanka Somaliland soo galo oo dhanka Itoobiya ka galo waa sida uu sheegay ninkan ayaa markii maamul goboleedka Galmudug uu soo galay waxa markiiba gacanta ku dhigay ciidanka ilaalada ama nabadsuida maamul goboleedka Galmudug ninkan magaciisa waxa la yiraahdaa Maxamed Ibrahim Cismaan waa nin dhalinyaro ah waa ninka dhalinyarada ay ku muuqanaya isaga ayaana sabab u ahaa inay dhimanto oo goobtaas ay ku dhimatay Xamdi isaga sabab u ahaa inay ugu timaado waayo ragga kale kufsaday maba isgaranaynba haddaba ninkan markii la wareystay muxuu ku jawaabay oo uu ka yiri geerida allaha u naxariistay marxuumad Xamdi iyo cidda ka dambeysayba marka uu horeysa ninkan waxa la su'aalay sababta uu dilay gabadhan waxa uu ku jawaabay anigu maan dilin inaan dilana ma doonayn adduunka ayaana ugu jeclaa xiriir ayaana naga dhaxeeyay waa run aniga ayaa kula ballamay hotelka waayo waan wada sheekaysan jirnay muddo ayaanan wada soconay markii ay timi ee aanu qolka ku wada sheekaysanay ilaa saacada ay la joogtay ayuu yiri
waxaan xidhay kabaheeda waa kabihii gabadhoo xidhnayde waxaan isiri suuliga gal suuliga markii aan cabbaar ku jiraan ka soo baxay xamdi waan waaye dabaqa hoose jiranjirada ayaan soo boobay inta albaabka iska furay markii aan hoos u soo daadegay waan arki waayey haddana dabaqii sare ayaan fuulay markaan xoogaa warwareegay aan waayey baa nimankii hoteelka joogay aan weydiiyey waxay iigu yidhaahdeen markii hore maanaan arag bay igu yidhaahdeen haddana saacada kabacdiba waxay iigu jawaabeen war meesha ka cararayaan lagu xidhine waxaan ku jawaabay buu yidhi oo maxaa laygu xidhaya aan sameeyey xamdi meeday way soo kaxeeyeen buu yidhi dabaqa xaggiisa sare ayay soo joojiyeen waxay yidhahdeen wata xamdi halkaa ku dhimatay meedkeedu halkaa yaallo waan naxay buu yidhi cagihii ayaa i bararay waan dhaqaaqi kari waayey wadnaha ayaa iskay taagay waa sida uu hadalkiisa u dhigayeen kabacdina waxaan idhi maxaa ku dhacay xamdi baan idhi waxay ku jawaabeen xamdi yada gacanteeda isku dishay bay igu yidhaahdeen yada ayaa gacanteeda isku dishay ee meesha iyo boolisku kugu imane oo yaan lagu xidhine lafahaaga maad la carari anigu waan soo cararay buu yidhi aqalkayagii baan imi anigoo naxsan markii aan soo cararay ee aqalkayagii imi habeenkii oo dhan indhahan kala hayay waa aan fakerayey maxaa xamdi ku dhacay maxaa ku kallifay inay dabaqa iska tuurto waa sidau ninkuu hadalkiisa u dhigayee markii ay sidaa ahayd ee waagu ii baryeyna waxaan ku war helay magaalada aan joogo iyo weliba baraha bulshadu ay ku kulantaba in la leeyahay xamdi waa la kufsaday kabacdina dabaqa ayaa laga soo tuuray naxdin ayaa igu noqotay buu yidhi waa siduu isaguina leeyahay markii ciidanka maamul goboleedka galmudug ay waraysteen kadibna waxa uu sheegay waxaan isku qabtay buu yidhi ciidanka booliska hadaad tagto armaa lagu dilaa oo lagu qabsadaa ilaa aniga ayaa la ballamay cabsi ayaan dareemay buu yidhi wuxuu yidhi waxaan soo wacay ninkii hoteelka haystay ee igu lahaa waa xamdi wata dhimataye meesha ka carariyaan lagu dilini waxaan ku yidhi saaxiibow gabadha yaa kufsaday wuxuu yidhi mooji ma garanaye magaalada ka dhuumo oo yaan lagu arkin waxaan ku yidhi saaxiibow anigu gabadha maana kufsanin haddii baaritaan lagu sameeyana aniga maaha qofka kufsaday wuxuu igu jawaabay qofka ugu horreeya badda gelaya waa adiga lafahaaga haddaad jeceshahay magaalada iskaga carar kadibna markii sidaa uu igu yidhi ee cabsi iyo naxdin uu igeliyey lafahaygana aan la baqay waayo aniga ayaa xamdi kula ballamay hoteelka haddii aanan kula ballaminahayna raggaa ismay arkeen waa sidau isagu ina leeyahay ama ciidanka maamul goboleedka galmudug ugu sheekeeyeyba waxaan maskaxdayda rogrogaba niyaddayda la tashadaba xitaa faamiligayga umaan sheegine cagaha ayaan soo boobay gaadhi ayaana soo raacay waa sababtan muqdisho uga soo baxay waxaan gaadhi soo saarnaado oo hawada iyo cirkaba soo maraba waxaan soo gaadhay maamul goboleedka galmudug waa cadaado markaas soo galayna ciidanka ayaa igu dhegay waxa la weydiiyey xaggee ayaad ku socotay waxa uu yidhi maamul goboleedka puntland ayaan ku socday somalilan inaan galaan doonayay xalka etoobiya ka galo waxa la weydiiyey haddana haddii aanad dambiilo ahayn sababta masaafada intaa leg aad u baxsanaysaa maxay ahayd wuxuu yidhi haddii aan hadlana layma aamineen markaa waa sababtan u baxsanayay isku soo wada duuduub arrintan ayuu ku hadlay ninkii sababta u ahaa allaha u naxariistay xamdi oo dhowaan ku dhimatay magaalada muqdisho oo si arxandarraana looga soo tuuray fooqa dheer ama dabaqa dheerba haddaba su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay ma musalsal baynu daawanaynaa sidee ayay caqligalow tahay inuu ina yidhaahdo suuliga ayaan galay oo kabaheeda ayaan xidhay markaan xidhee suuliga galayna markii aan soo noqday waan waayey kaba soo qoban lacalla in arrinkaasu dhacayba suuliga markuu ku jiray gabadha haddii qolka loogu soo galo listiri qaata qayladeeda iyo saqadheeda xitaa miyaanu maqleen waa maxay caqliga noocaasa yuu ka dhaadhicinayaba meesha taalla waxaan anigu qabaa isaga iyo ragga hoteelkuba inay ku tashadeen inay gabadhan kufsadaan kabacdina ay halkaa ka tuureen laakiinse isagu wuxuu naga dhaadhicinayaa iyadaa gacanteeda isku dishay markii qolada hoteelku ay kufsadeen laakiinse
waynu ognahayo qofku markuu bilaad dambiga yahay mahmaha ayaa tidhaahdaa layligu biyo uurkiisa ku jira ama layligu biyo kashiisa ku jira ayuu ka didaa haddii aanu waxba iska ogayn markii falkaasu dhacay oo uu bilaad dambi yahay markaas ayuu ciidanka u tegi lahaa oo odhan lahaa anigu arrintaa kamaan dambayn markii aan soo baxayna saas ayuu u dhacday isku soo wada duuduub waa arrin rajo gelinaysa hablaha reer muqdisho ee hagardaamada iyo dhibaatada lagu hayo nin kastoo dhibaato gaystana waa in la toogtaa sujuudda laga toogtaa diinta islaamku waxay ka qabta lagu qaadaa ciqaabtiisu waxay tahay bal sidaad arrintan u aragto commentiga igu dhaaf ma runbaa ma beenbaa sidaad ugu u aragto fadlan haddii kanalkaad ku cusub tahay subscribe saar muuqaalkana noo sii sheergaree والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وين كهدات شان عطرت قصتان أبلا